بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal kusoo dhawaada kuwiin hejsom waan idiin salaamay meel walbo oo dunida ka joogtiin iyo xili walbo oo idintaa waxaan idiin rajeynayaa kheyr caafimaad dhammaantiina soo dhawaada kusoo dhawaada qalbi furan aad iyo aad u wada mahadsantiin waa mahadsantiin inaa idiin dhoone marnaba kama daalay kamana caajisay man laa yashkuri naas laa yashkurillah alxamdulilah allah subxaana watacaala ayaa mahad iskale oo ii ogolaaday inaan idiin soo duubo video kaleeto cusub anigoo caafimaad qabo idinkana waxaa rajeynaa inaa caafimaad qabtiin inta xanuunsan ilaahay caafimaad taam ha siiyo allaahuma aamiin waa barnaamijkeenii sidee ku hantiin kartaa qalbiga zoojkaaga iyo qeyb kaleeto cusub barnaamijkan wuxuu baxaa asxaabta cusub soo dhawaada haweenka isniinta soo galayso iyo habeenka axada soo galaysaba waxaa rajeynayaa in aad fiican u fahamteen gambaleelka furta sida videoga markuu soo dhacoba aad u aragtiin daawasho wacan. waxaan rajeynayaa inaad ka wada heli doontiin dhammaantiina soo dhawaada. barnaamijkeeni qodobkiisa ugu horeeyo waxaan kusoo qaadanaa mar walbo asabar. sabarka waa shay muhiim ah, sabarka waa qaali. sabar waxaan lagu heline waxaan loo sabrine ma toosaan mana hagaagayaan insha allah. sabarka badiya labada dhinac ninka iyo naagta ama xaajiyada iyo xaajigaba in aad sabirtiin isku sabirtiin insha allah badiya. qodobka kaleeto waxaa waaye haddii aad rabtid mar walbo in aad farxad iyo jaceyl iyo reenreen uu gurigaaga ku dhisnaado waxaana laga rabaa labada qofood inaad isku kalsoonaatiin sidoo kaleetona aad isku sabartiin aadna isaga dhawaatiin wax walbo ee adduunka yaalo qof walbana qofka kaleeto inuu markaaseeti uu fahmo ama wada hadli kartiin. qodobkeeni kaleeto xiga waxaa waaye haddii aad rabtid aad ama jeceshahay in uu ninkaaga noloshaada inta ka dhiman uu adiga le ku jeclaado uu qof kaleeta kaa aadin insha allah waxaan rajeynayaa qodobahaneet aad iyo aad ayay muhiim u yihiin. waxayna muhiim u yihiin qof walbo oo soomaaliyeed ah oo guursan rabo amaba guursaday insha allah waad ka faa-iidi doontiin. haddii aad xitaa kulli ka faa-iidin fikrad yarba ha ahaatee waad ka heli doontiin insha allah. waxaa lagaaga baahan yahay in aad ka dhigtid xaajigaaga ama ka dhigatid ama uu kuu maleeyo mar walbo qoftii uu soo caanshaqay markaaseeti waxaa kuu suurtagalayso inuu qof kaleeto oo dib u eegin. qodobka ugu horeeya marka aad kusoo qaadanaysid qodbahaaseti aan kuu sheegayo ka fikrad ka qaado adigana dhammaystiro insha allah. in aad marka ugu horeeyo aad uga nixisid ama lama filaan aad uga dhigtid in aad adiga waxyaabo iska kaa bedeleen inuu arko mar walbo aad lama filaan uga dhigtid. matalan haddee tahay tintaada inay kalar kaleeta marisid oo aad isbedeshid oo marka rooseetooyinkii mar walba uu kuugu arki jira camal aad marsanin oo nooc kale adi wax cusub inuu kuugu arko insha allah. sidoo kaleetana ka feerjignaaw kalaro oo waxaa jiro nimanka ay nacab yihiin kalarka uu ninkaaga jecel yahay camal isku day marso. haddii aad adiga lama filaan ah uga dhigta kalar uu nacban yahay uu ka heli waayana isku day maalmo kadib haddana inaad kalarkaaseti iska bedeshid insha allah. qodobka kaleeta xiga waxaa waaye in aad mar walbo aad ilaalisid nadaafada nafsadaada iyo nadaafada gurigaagaba mar walba taas aad iyo aad ayay muhiim u tahay nadaafada naftaada iyo nadaafada gurigaaga. sidoo kaleetan inaa mar walbana stylekaaga bedeshid mar walbana barnaamijka waan ugu soo celceliyaa inaa mar walba stylekaaga bedeshid uu kugu arkin qaab nooc. matalan maalin walba hadaa dirac bacweyne la gashan jirtay inaad iska daysid oo diraca bacweynaha naftirkiisa aad xarakeysid. waxaad sameyn kartaa akshano ayaa jiro diraca bacweynaha naftirkiisa aad qurxin kartaa. haddii aad rabtiinna inaan iisoo gudbiyo sida aad u qurxinaysid commentiga iigu soo qora insha allah waan ila wadaagaya. qodobka kaleeta xiga waxaa waaye in aad adiga wax aad adiga leedahay aad sameysan kartid oo aad soo fikiran kartid wax aad adiga leedahay ama farsamo gacan ha ahaato yacni wax qabad inaad sameyn kartid taasna aad iyo aad ayay kalsoonidiisa
aad bay kugu kordhaysaa kalsoonida uu kugu qabo. sidoo kaleeta haddii aad ku guuleysatid waxyaabahaas aad sameynaysid, marka ugu horeeyo sameey in aad u hadiyeysid faamilkiisa. asigana wuxuu dareemayaa farxad aad iyo aad u weyn, sidaasna waxaad ku hananaysaa qalbiga zoojkaaga. sidoo kaleeto waxaan ku sheegayaa in aad ninkaaga hooyadiisa ka dhigatid saaxiibtaada. qof walba haduu yaabaya maahano, qof walba ma jeclo hooyada ninka ama sodohda dadka ee dhahaan, laakiin haddaa aad ka dhigatid saaxiibtaada wax badan ayaad faa-iideysaa. haddii aad ka dhigan karin walba ha ka dhiganin cadowgaaga, ileen qof jecel ma lehan qof familkiisa nacab inuu asigana uu jecel yahay, qofna aamineysa male. adigaan ku jeclahay hooyadaa ma jecli, ama adigaan ku jeclahay familkiina ma jecli, qof oo maanta akhrisan karto male. qodobka kaleeta xiga waxaa waaye marnaba ha ku dhiiranin wax uu ninkaaga awoodin inaad dhahdid ii sameey ama ii soo gad. ileen qofka wuxuu awoodin haddii aad ku qasabtid wuxuu dareemayaa inaadan jecleen oo aad barooweynaysid ama fiirinaysid ama kalifaysid ama aad ka talinaysid khasaarihiisa iyo dhibaatadiisa. taasna marna ha isku dayin, kana feerjignaaw. qodobka kaleeta xiga waxaa waaye wixii adiga iyo ninkaaga niga dhexdhaco oo guriga inaadan banaanka u saarin. banaanka hadduu mar arinta familka u baxo, ninka aad iyo aad ayuu u nacban yahay oo ragnimadiisu ayuu dareemayaa in uu damiirkiisa oo aad dhaawacday. ninkan haddii mar uu dareemo sidaaseeti wuxuu kuu qaadayaa xaqdi ama xaasidnimo aadan ogeen, mar walba uu kugu cadaaba adigana aa ogeen waxa aad ka haleysay. marka isku day familkaaga iyo familkiisaba inta ay gaarin, hadday arinta xadkeeda dhaafto waa la garta, laakiin wax oo iska yar ama basiid inaadan banaanka u saarin insha allah biidnillahi kariim. sidoo kaleetana mar walbana inaadan u cawaadin oodan calaacalin. mar walbana isku day inaad farxad gurigaaga ku abuurtid, aa ninkaada la kaftantid. markuu uu daalan yahay laakiin hala kaftamin, waxaa laga yaabaa inuu kaa xanaaqo ama buuq dhexdiinaba ka dhaco. insha allah biidnillahi kariim barnaamijkeeni intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa. mar walbana waxaan idin leeyahay quruxdiina gacanta ku haysta. haddii aad rabtiin gurigiina boqoradiisa mar walba inaa ahaatid, waxaa lagaaga baahan yahay wax walba oo jundi inaad gelisid. ma ahan farxada hal mar ma iska imaado, inaad sawirtid wax walba oo dhib ahna aa ku sawirtid. insha allahna waa ku dheefsan doontaa, iyo nimcada ilaahay uu ku siiyey mar walba inaad ku shukrisid oo nimcooyinka islaameed aadan fiirinin. haddaa videogan ka heshin fadlan like saara, sii sheer gareeya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sidoo kalena waxaan idin leeyahay mar walba quruxdiina gacanta ku haysta, ahaada indhaha ninkiina malakatul jamaal ama boqorada quruxda. bye bye.